السلام عليكم. waa maxay xasidnimadu? maxaase lagu gartaa qofka xasidka ah? xasidnimadu waxaan oran karnaa waa laba qaybood, mid uu qofka ku dhasho iyo mid uu qofka gadaal ka noqdo, iyadoo ay ku kaliftay inuu xasid noqdo wadciga adag uu ku soo koray ama marxaladda kala duwan ee nolosha soo martay. xasidnimadu waa wax qofka qalbigiisa ku jira oo ku kalifaysa qofka ama ku qasbaysa inuu dadka xasdo si walbaba ay ahaato isagoo aan ka faa'iidayn waxba. haddaba waxaan kala qaadaynaa tan lagu dhasho iyo tan gadaal laga noqdo. xasidnimadu lagu dhasho waa mid qofka iskaga abuuran, taas oo aan oran karno waaba qofka hobbigiisa oo uu ka helo, waxayna ka soo bilaabataa xilliga carruurnimada. tusaale ahaan, ilmaha qaar waxaad arkaysaa ilmo kale inta uu dadka waaweyn iska eego, qaniinaya ama wax ku dhufanaya, alaabtiisa ka tuuraya, qalinkiisa ama kabihiisa mid ka mid ah. oo ilmaha mar walba inta ay iska fiiriyaan qofka ay wax ku samaynayaan oo ah ilmo kale oo loodkooda ah, wax dibindaabyo ah oo uu kaga xanaajinayo ku sameeyo ilmahaas. waxaa ka dareemaysaa waxaas uu ku samaynayo ilmaha kale oo uu kaga xanaajinayo inuu ku raaxaysanayo oo uu farxad ku dareemayo. haddaad ku qabato oo weydiiso waxaa ku kalifay, ma garanayo wax sabab ah. saas ayuu ku weynaadaa, xasidnimadiisina oo la weynaadaa. waxa ayna gaarsiisaa heer uu ka naxo qof walba oo wax wanaagsan haysta, oo uu ka fikiro sidii uga kala tuuri lahaa ama uga burburin lahaa. haddaba tan lagu dhasho iyo tan gadaal uu qofka ka noqdaba waxa ay ka siman yihiin dhaqanka iyo wax walba oo ay samaynayaan. marka uu qofku weynaado, waxaa lagu gartaa qofka xasidka ah waa dibindaabyo miiran, waa mid ka shaqeeya gadaashaada si uu u furo xarig kasta oo aad xirxirtay oo maslaxadaada ku jirto, waliba si dadban oo aadan iska garan ayuu sidaas u sameeyaa. qofka xasidka ah waxaa lagu gartaa waa munaafiq, kuu isticmaalaya laba weji fiican oo aad ku taqaanid oo uu dadka ku siro si loo moodo qof fiican, iyo weji u qarsoon oo cadowtinimo ah noloshaada rabo inuu ku gubo. qofka xasidka waxaa lagu gartaa inuu aad iskugu dardaro dadka, isagoo iska dhigaya qof caawimaad badan, asxaan badan, runsheeg badan, si aad isugu furfurto oo uu xogtaada iyo meelaha aad ka dabacsan tahay uu ogaado, si uu u helo wadada ugu fudud oo uu kugu baabi'in karo noloshaadana uu ku kala tuuri karo. qofka xasidka ah waxaa lagu gartaa xiriir joogta oo ka badan sidii caadiga ahayd, isagoo ay ujeedadiisu tahay si uu mar walba xogtaada iyo waxa kaa cusub noloshaada u ogaado, si uu isna howshiisa u wato, adigana aad ugu moodid saaxiib fiican oo kaa warhaya mar walba. balse arrinku sidaas wuu ka duwan yahay. qofka xasidka ah waa mid xan badan, mar walbana ka sheekeeya dadka sharafta leh, isaga oo dhaliil xun u raadinaya dadkaas wanaagooda iyo guusha ay gaareen. qofka xasidka ah waa qof niceeb oo mar walba jecel inuu dab ka dhex shido lamaanaha isqaba ama isguursan raba, oo isku faraxsan, saaxiibada isku wanaagsan oo isjecel, deriska isku wanaagsan, walaalaha isku faraxsan oo isjecel, waalidka iyo ilmihiisa, iyo laba qof kasta oo wanaag ka dhexeeya. soomaalidu waxay ku maamahdaa hebel waa saddex neceb. qofka xasidka ahi waa mid xanuunsanaya oo ka xanuunsanaya nimcada ilaahay dadkiisa u qaybinayo maalinlaha ah. waxa uu jecel yahay in qaaliqaa isaguun wax siiyo oo dadka oo dhammi aysan wax ka soo gaarin nimcadaas. dhibaatada haysata xasidkana waxay tahay dagaal aan guul laga gaarayn ayuu ku jiraa dharaar iyo habeen. qofka xasidka ah waa mid ay ka maqan tahay xasiloonida iyo farxadda, oo aaminsan in wax kasta oo wanaagsan allah isaga ka qadiyey oo ku fikiraya dadka kale ayaa adiga kaa nasiib wanaagsan. qofka xasidka ah waa saaxiibka dhabta ah ee shaydaanka, ama kaba sii xag jira oo shaydaanka ayaa la qaatay. waa qof xitaa markuu salaada ku jiro ku mashquulsan oo ka fikiraya sidii uu qof walaalkiisa ah u damiri lahaa ama dabin ugu dhigi lahaa. qof wakhtigiisa inta ugu badan ku lumiya baabi'inta iyo waxyeelaynta bini'aadamka, balse waa mid mar walba ku fashilma dabinta iyo xumaanta uu sameeyo, guulna aan ka gaarin. qofka xasidka waxaa ku yar iimaanka iyo ka cabsashada rabbi subxaanahu wa tacaala, waxaana u fudud wax walba oo uu cagta ku marin karo wanaagga dadka. xitaa inuu ruuxda ka jaro qof way ugu fududahay koob biyo ah oo la cabo, sababtoo ah uqdada iyo xumaanta qalbigiisa ka buuxda ayaa ilowsiisay alla ka cabsiga iyo wixii uu la kulmi lahaa maalinta qiyaame. qofka xasidka ah waa masiirlow. masiirku ma aha keliya kan ay kala masiiraan labada isqaba ama xiriirka leh, balse kan xasidku waa masiir uu ka masiiro qofka wax wanaagsan haysta, qof awlaad wanaagsan haysta, qof lacag haysta, qof wax bartay, qof sharaf leh, qof qurux badan iyo wixii la mid ah. haddaba
soo koobi karno muuqaalkan qofka xasidka ah sifooyinkiisa oo dhan halkan. Qof kasta oo calaamadahan iyo ka badanba leh waxaa muhiim ah in laga fajignaado loona duceeyo in Rabbi soo hanuuniyo. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa waxaa kaloo muhiim ah qofkii iska dareemo xasidnimo yar ama calaamadahan oo kale leh inuu isdaba qabto Ilaahayna u toobad keeno kana duceysto in Alle ka dilo xididka xasidnimada oo jirkiisa ku jira, waayo xasidnimadu waxay cibaadada qofka u cuntaa sida dabka dhuxusha u baabi'iyo oo dambas uga dhigo. Nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi xasidnimada iyo iimaanka meel kuma wada kulmaan. Marka qofka aan iimaanka lahayn xaalku uu ku sugan yahay waad garan kartaa. Ilaahay qalbigeena xiqdiga iyo xasidka ha ka fogeeyo. Aamiin. Haddaad ku cusub tahay channelka Rajada iyo Maanta, subscribe sidoo kale gambareelka furo si aan ku soo gaarsiino muuqaalada xiga. Mahadsanid.